dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay haweeney la sheegay inay xaday cunug yar isla markaana lagu soo qabtay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wariyayna magaalada Muqdisho Xuseen Cabdulle ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cabdulle Cusmaan ayaa maanta laga soo dajiyay gabar canug yar ka xaday magaalada Muqdisho 3 maalmood ka hor taas oo iyadii canugii wada lagu qabtay shalay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan soo qabashada gabadhan oo canuga yar ka xaday magaalada Muqdisho isagoo jira muddo 6 bil ah 3 maalmoodna haysatay ayaa waxa suurta geliyay ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo gacan ka helaya hay'adda SWDC oo laga soo gaabiyay Somali Women Development Center ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa maanta lagu wareejiyay gabadha wax soo xaday iyo canugii la xaday si ay baaritaan ugu sameeyaan waxaana goobtaasi ka hadlay Cabdullaahi Buule oo ah madaxa baarista dambiyada ciidanka booliiska Soomaaliya isagoona faahfaahin ka bixiyay sida loo xaday canugaasi hogaanka baarista dambiyada iyo taliyaha qaybta booliiska Hiiraan oo ciidankiisa waxay ku guuleysteen soo qabashada gabadhii xaday ilmaha waa kiis phenomena oo cusub adduunka kiisaska waa isbedelaan maalinba nooc cusub ah dhashay ilma in la xado nool waa waxyaabaha ku cusub Soomaaliya maanta kiiskan waxa lagu guuleystay raboorkaas markuu soo gaaray booliisku waxay ku dadaaleen inay information raadiyaan taliyaha qaybta booliiska Hiiraan Beledweyne Colonel Isaaq iyo ciidankiisa markaan xiriir badan sameeyay kadib waxay ku guuleysteen inay gabadhii ilmaha xaday soo qabtaan gabadhu ilmaha waxay u xaday markii hore si fantastic ah gabadhan kale u tagtay waxay tiri gaalkacayaan ka imid magaalada ehel ima joogo waxaan codsanayaa hay cawada kali gurigaaga aan kula seexdo suuxi markuu ugu bareen waxay tiri lacag baa waxay taalaa shirkad bakaara ma aqaanay raaco ay weheli tiina lacag markii loo sheegay way raacday bakaara markii la tagay oo ay tiri lacagtii waan soo qaatay inta meel la gashay waxay ku tiri waxaan kuugu abaalgudaa maadaama xala aad barisiisay ilig qalinahan ku gelinaya way waday meel waxay geysay klinika ah oo dentista gabadhii markii qolkii la geliyay oo laboratory oo iligi loo gelinayay cunugiisaasay kula dhuumatay halkan waxaa lagu soo xiray oo booliisku gacanta ku dhigeen 3 qof oo klinikadii ka shaqeynayso macal ninkii dentista uu ku jiro aakhirkii information badan kadibna waxaa la helay walaalkeeda la soo qabtay halkaas laga ogaaday Hiiraan inay jirto raadraac kadibna waa la soo qabtay Beledweyne gurigeedii loogu tagay booliiska soo qabtay waxaana lagu guuleystay booliiska mar labaad inay xamar keenaan oo meeshii waalidkeed uu joogay gabadha ilmaha dhashay ay joogto waatana tii xaday waatana gabadhan waa booliiskii Beledweyne oo soo qabtay gabadha tan kadibna ayadaa lagu soo katiinay ilmihii yaraana soo qaaday oo keentay gabadhii eedeysanada ahayd iyo cunugii ayda keentay booliiska Hiiraan ay ka tirsantaa Maryan Taqi Xuseen oo ka mid ah hay'adda SWDC ayaa sheegtay in kiiskan uu yahay mid xariira ayna ku lug leeyihiin koox kale oo isbitaal ilka lagu dabiibo ku leh magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya looga baahan yahay in baaritaan dheer ku sameeyso arintan si ay doorkeedii way dadaashay nisana waxay ahayd ifiyihii barnaamijkan haddaan dhalinyarada nista ka socota la arkin barnaamijkan laguma guuleysteen lamana heleen biliiska samaantay tale la gudboon tahay gabadhii gacantay ku hayaan dadkii wax geystayna waa la hayaa kiiskaas ummadda iyo ilaahayba waana maqlaayaan meel cad inuu yeeshaan biliiska ka rabnaa oo berina marqaati aan ku noqono goobta lagu qaadi doono oo la ogaado si ay ummadda u nabad gasho maslaxad iyo nabad leh annaga SWDC ana la yiraahdo waxaan ka shaqeynaa nabadda waxaan ka shaqeynaa dadka dhibaatada gaarta waxaan u kaalmeynaa hooyo kasta oo dhibaato tabanayso xildhibaan Ibraahim Deego iyo aabaha dhalay canuga yar ee la xaday ayaa goobtaasi ka hadlay waxayna u mahadceliyeen laamaha ammaanka iyo hay'adda SWDC oo iska kaashaday soo qabashada haweeneydii xaday canugaas yar waxayna dalbadeen in si sharci ah loo baaro kiiskaasi waxaan u mahadcelinayaa hay'adihii isku shaqeeyay oo ku howlgalay waqti ka bixiyay cunugan sabeenka oo xaqiiqda in la soo celiyo hooyada dhashay ee rafaasan lagu soo celiyo sidoo walaashay ay u sheegtay cunugan waxa la haday 23 bishii mars la haday ilaa waqtigaasi lama fadhiisanin haddii nabad sugid tahay hadday booliis tahay haddii hay'adihii hadda walaashay sheegtay lama fadhiisanin marka awalan waxaan u mahadcelinayaa horta hay'adihii amnigii maanta inay shaqeeyaan Soomaali taas horta ilaahay maatis way waxaan u mahadcelinayaa intaas kadib maxaa yeelay Soomaaliya dawladnimada waa fiican tahay Soomaaliya waxa kama maataa
dawlad la'aan dawlad honaadaan maanta xeer la gaaray booliskii ay joogay gobolkii Hiiraan joogay hadda inay unugii ay maanta ay soo hiraan ay soo qabtaan inta keenan waa arrin muhiim ah laga shaqeeyo maxaa yeelay hadday dawlad jaran lahaynin lama soo qaban lahayn marka intaas kadib gabadhan oo hadda unugan xadina kolay dadku waxa leeyaan waa badan yihiin gabadhan way ma aha dad kale si badan si jar doonaan waxaan rabnaa kiiski maanta wuxuu yaalaa fiidii oo ardayda badgelida agtooda iyagaan u madax banaan say ay maanta ay u shaqeeyaan say gabadha walaashay ay u sheegtay say ay maanta ay u qaadaan iyagaan ku sugeynaa insha Allah taala iyagaan hadda gacanta ku hayaan unugan sabiyaanka 6 bilood jaro waxaan noo sheegay ninkii dhalay hooyadii dhashay hadda maanta caanadeeda waa gurtay saacadan bal iyo ma zaada waa marka hadda maanta waxa ma aqoon in caanadii maanta caana la'aan waa hadda caanadii waa gurtay marka ninkii dambagaas galay kolay hay'adii amniga ta gacanta ku hayaan gabadhan masaakiinta kolay wixii ay kala taliyaan hadii iyada warkaad waxaan ka maqlay in qofba kala talinin أنا ما حضرنا دمان أنت كأنك جلست هذا حال هاي البوليس هذا حال هاي هذا إد كستو شعبك هذا أنا دولة الصومالية قبل قبل حالنا هو بالله إلهي الشيء هذا سوق أنت قبتين أجر صلاة إلهي كسيو أنك أنا وحنا هاي إلهي إلهي جبنا وصاعد الإسلام هذا شيء كله أو إلهي بعلم حلولنا إن شاء الله وحنا هذا نكون جوانا إنتي دبكان جيستي المدة قالتي إن كل مدن وهي أي متستي الصومالي أي مرين دونتو مركب إن شاء الله أنا كانوا هذا يعني فرح سنة دريك يوم من السوق وكرمها مركب إن شاء الله أنت أيام السوق عنو هويدي هويدي سواتر وحالي رسان خير معلم إسان سيد الله حدي سيد الله وقعتي فبعنا gabadhan ogaa waxay iska soo dhigtay qof socdaala oo wadanka aqoon marka xilli goor gaaban ay tahay isku soo darmeen waxay tagay aniga inay safaraan ahay maadaama magaalada degan tahay waxay tagay awada jiif iyo waxaan rabaa meel inaad u gudbeyso gurigaaga ugu martaqaado sidii isku raaceen dabeetana gurigay u hooyadeen subaxii dambana waxay tagay waatii hore u sheegtay magaalada aqoon waxay tagay inay ila soo eegtaan gabadha ilmaheeda iska qaadatay waa qof iska daacad ay ahayd qoftaasna kolley khiyaamaha ay u laabnay marka ilaahay aan tala u dhan say rabtayna waxa ma noqon ilmihiina xilligii dambe in laga furto gabadhan maxay ahayd khiyaamo loo qaato ay arrintii noqotay marka insha allah ilaahay aan mahad maanta dib ayay mar labaad gacantana soo noqdeen waqtiga qaaday ee dadkaas ka shaqeeyayna insha allah gacanta dowladda ku jira marka arrinta sidaas ay waxaan حسين عبد الله كارسون TV مقدشو